ساعة الإجابة الله نوافج ذاتك سودي نصدر الله كرجع يكون كدر سودي بتني إلهي جنة ودورة آخر وحيكورتين الله ودقه زايد كان الله ما يتر halka ay culimadan ku duceynayaan waa dhismaha masjidka Umar bin Khadaab ee ku yaala wadada Doondob degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ducadan ayay culimadu ugu duceynayaan cid kasta oo wax ku darsatay dhismaha masjidka iyo kuwa jecel inay hadda wax ku darsadaan maadaama dhismaha masaajidka uu hadda marayo meel gabagaba ah masjidka Umar bin Khadaab ayaa xilligan waxa soo food saartay qarash la'aan iyo qaar ka mid ah qalabkii dhismaha oo go'an taas oo dhalisay inuu hakad ku yimaado dhismaha masjidka culumooyinka gacanta ku haya dhismaha masjidka isla markaana aanan ka daalin in bulshadooda ay la wadaagaan heerarka kala duwan ee uu marayo dhismaha ayaa booqday dhismaha masaajidka si ay bulshada Soomaaliyeed ee jecel inay sadaqada la baxaan ugu iftiimiyaan baahiyaha uu qabo masjidka Sheekh Axmed Macalin Xasan Axmed Wali oo kamid ah gudiga gacanta ku haya dhismaha masaajidka Umar bin Khadaab ayaa ugu horeen faahfaahin ka bixinaya baahiyaha xilligan ka jirta dhismaha masjidka saacada la joogo masjidka wuxuu u baahan yahay oo haday ay ka baxaan nimanka faryaamada ku jirto waxa loo baahan yahay bir runtii birta noloo diray waxay ahayd 160 kintaal ay ahayd waxaan maanta haysanaana waa 50 kintaal waxaan naga dhiman waa 110 kintaal oo bira lacagteedana waa lacag haday u badato 7,000 iyo wax yar oo dollar ah waxaan rabnaa on galabta intaanu culumaa ay ka duceynaysaa 7,000 oo dollar badeeca gaarayso oo baahida masjidka saacadan la joogo ay u taagantaa oo aan aad ugu baahanahay runtii birta waa shaqada koobaad oo hadda naloo diri doono waana naga maqan tahay lacagna gacanta kuma hayno marka waxaan rabnaa walaalaha meel kastay joogaan inay codsigeena ka soo jawaabaan oo ay noo gadaan birta insha Allah taala waxa kale oo masjidku u baahan yahay markii birta la helo waxa ay tahay jaay wuxuu u baahan yahay ciid wuxuu u baahan yahay shamiitada masjidka loo baahan karo waxana loo sheegay inay dhan tahay ilaa 1,200 oo kiisho shamiita saacadan la joogo waxaan rajeynayaa gacanteena inay ku jirto shamiita aan isleenahay ilaa 600 meelaas way gaareen waxa naga dhiman waa shamiita ku dhadhow 700 oo kiish waxaan rabnaa hal qof gedi kara laba qof gedi karta saddex qof gedi karta in masjidka shamiitada laga caawiyo qofkii awood inay shamiitada naga caawido waxaan kale u baahanahay waxa ay tahay jaayga masjidka lagu shubi lahayd waxaan naloo diray waxay ahayd 23 loor oo jaaya maanta waxaan haysanaa waa 3 loor oo noo degan waxa naga maqan waa 20 loor oo jaaya beeceeduna haday u badato waa lacag 4,000 dollar jaaygaas oo masjidku uu u baahan yahay hal qof waalidkiisu la bixi kara hal qof nafsadiisa si horumarsan kara waa 4,000 wax gaari kara jaayga masjidka oo hadda saacada la joogo oo u baahan doona daboolkiisa waxaan kale u baahanahay waxay tahay ciid waxaan loo sheegay ciid aan u baahanahay inay tahay ilaa 10 sigis baawurta la yiraahdo waaweynka kaarikadii waa 200 dollar hadii 200 la yiraahdo waa 2,000 dollar hal qof bixi kara birta aan u baahanahay waa sheegna waa intaas walaalaha waxaan ka codsanaynaa qofkii bixin karta birta wala jaayga wala ciida waxa dhan wala shamiitada naga bixi karta waanu u duceynaynaa insha Allah taala ilaahayna waxaan ka rajeynaynaa ducadeena inuu ilaahay u aqbalo qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed ayaa dhankooda sheegay in xilligan masjidka Umar bin Khadaab uu u baahan yahay in bulshada Soomaaliyeed ay si wada jir ah ugu kacaan isla markaana ku darsadaan waxay awoodaan maadaama waxa la dhisayo ay tahay beed alle oo cid walba ay xil ka saaran tahay midda dalka ee dibadda jirta waa inay noo soo gurmadaan masaajidkana loo gurmaa unku maaragta badaran cunno guryahaan ku haysana laakiin masaajidka marti noo ah aan hoos yaala waa kan hoostiisaan rognaa marti waaye bulshada oo dhan oo maaragta jinna u yahay loo sameeyay hana ka raali ahaado aabbayaalo hooyayaalo gabdhahaygi waydan baryaynaa dalka hajiraan dibadda ha jiraan hadda waxay joogtaa gabadhaasay joogtaa waa kaas la taagay marka waxaan rabnaa dadka muxsiniinta ah oo muslimiinta masaajidkan inay mar la arkaba maaragtay niyada ay ku soo hayaan ay soo maaragtay taageeraan maalinta qiyaamana ayaga ku badbaadayo maxaa yeelay adduunyadan masracatul aakhira waaye adduunyadan waxa waaye aakhira beerteeda adduunyadan ayada waxa waaye daarul amal waaye ee daarul jaza ma ahan maxaa yeelay amalka la sameeynayo kaliya lagu gutaa maahan xagga jazaha iyo abaalgudka iyo qiyaamo ayaa macnaha la isku abaalgudayaa marka wax allaala wixii adduunyada aad ku samaysato qiyaamo waa ka horeynayaan maxaa yeelay adduunyadan hadaad sadaqa ku baxsato hadaad ku cibaadeysato wax kasto wanaago adduunyada aad ku samaysato aakhira ayaa diraysaa ilaahay wuxuu leeyahay faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إخوة الكرام الدنيا أركز ودارة بدن هذيك تكتو وهو إلهي سبحانه وتعالى
maarta waa inoo qolo xisaabtamaa qiyaamo maalinteeda maarta waa in min ayna tadhabuna lagu leeyahay dhistaan saan u dheer halkee baa u aadaysay laakiin maarta waa in dhis kastaba arada korkeeda la yeelo wabaalun calaa saaxibihi ila almasaajid masaajidda laakiin mana kuma jiraan masaajidka waxyaabaha lagu faara kamid yihiin qiyaamo maalinteeda siraadka waxyaabaha aad u gudbaysa kamid yihiin ikhwatul kiraam marka waxaa loo baahan yahay muslimiinta maqal iyo muuqaal kulli maarta waa inay wada arkayaan masaajidka maarta gabagaba waaye qof kasta jaabkeeda wax alla wixii maarta ha furto waxa waaye qoftii maanta saacada nool saacada dam inay gaarayso ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ku cilmi leh marka meel fiican wax gashato meel fiican wax la gashtan waa masaajidda u habboon sadaqa jaariya ku yihiin marka qof ilaala qoftii islaana waxaan ka codsaynaa masaajidku waad u jeedaan waa bir alwaaxa lagu wadaa alwaaxuna wax lagu daboolo rabaa wixii lagu dabooli lahayna waa bir iyo shamiido waxaan idinka codsaynaa oon haddana dhowr joogna idinka codsan inaad noo dabooshiin noo dhammaystirtiin waxaa jira hal qof ama laba qofood oo dhammaystiri kara ilaahay hadduu ka soo qaado ilaahayna idinka soo qaado ilaahayna noo soo qaada aninka idinkana alla idinka soo qaadaya waani adduunya aakhiro wa adduunya aakhiro qoftu hadday adduunyada ka tagto aakhirana ay tabcatay aakhiray tegi Cumar Buule Tusma TV magaalada Muqdisho.